Gabadhii xiriirka la samaysay ninkii horarka ahaa maxay kala kulantay? Maxayse ahayd caqabadihii ugu xumaa ay kala kulantay ninkaasi? Gabadhu waxay ka shaqayn jirtay company amaba shirkad. Maalintii ay ku beegneyd maalintii ay fasaxa leedahay ay la kulmayso saaxiibkeed, waxay wacatay saaxiibadeed una sheegtay in ay la kulmayso jacaylkeeda ay muddo badan ka wada sheekaysan jireen internetka amaba social media. Markii ay ku beegneyd maalintii ay wada kulmayeen ayay gabadhii waxay ku wada kulmeen wiilkii meesha loo yaqaan cafe amaba ku wada kulmaan lamaanaha waxna ku cabbaan waqtina ku wada qaataan. Waa uu yimi cabbaar ayay wada sheekaysteen. Markii ay hadal isdhaafsadeen wiilkii waxa uu ku yidhi ma ila ciyaaraysaa? Markii ay cabbaar wada ciyaareen lamaane kasta ama gabar kasta waxay la ciyaaraysaa saaxiibkeeda. Aad ayay u faraxsanayd waxayna tabaysay midkii noqda aayaheeda mustaqbalkeeda. Kadib cabbaar ka bacdi waxay yimaadeen guri cabsi leh. Gabadhii wax hadala ma aysan weydiin saaxiibkeed, ma aysan dhihin waa maxay gurigan sidan kale ah. Guriga waxa uu ahaa mid cabsi badan. Isagoo dareemaya inay u faraxsan tahay noloshiisa inta uu habsiiyey ayuu waxa uu ka qaniinay dhuunta. Gabadhii qaylada ay qaylisay inta uu sii daayay ayuu ka durkay. Aad ayuuna uga naxday. Waxauna la soo baxay wajigiisii dhabta ahaa. Gabadhii naxdinta ay naxday way qaylisay. Inta uu ku soo durtay ayay gabadhii naxdin darteed suuxday. Markii ay suuxday cabbaar ka bacdi waxaa ka luntay gabadhii jihada, waxayna garan weysay meesha ay joogto. Waxay dareentay ugu dambeyn gurigii ninka uu keensaday inay joogto, balse waxay weysay isagii meesha uu cirib iyo jaan dhigay. Riyo miyay ahayd waxay ku jirtay mise run ayay ahayd? Booliiska ayay u timi. Kadib markii ay hadalladii u sheegtay wax kastoo dhacay, booliiska waxay keeneen meeshii maqaayadii. Waxay dhaheen noo baara. Aniga maalintaas waxaan maqaayadda ka sameynayay. Keligeed ayaa kursiga fadhiday markii kaamirada lagu noqday. Sidoo kale gabadhan waxyaabo aad uga naxiya ayay aragtay. Markii ay ciyaaraysay gabadha kaamirada waxay ka fiirsatay inay keligeed ciyaaraysay. Qof agteeda fadhiyay amaba la ciyaarayay inuusan jirin. Booliiskii waxay rumaysan waayeen gabadhii waxayna dhaheen maalintii keliga ayay ciyaarayay. Gabadhii waxay ku soo laabatay shaqadeedii iyadoo xasuusanaysa wiilkii. Dhuuntana waxaa uga taallay qaniinyadii. Aad ayayna uga fakaraysay. Gabadhaasina way ka shalaysay waxyaabihii ku dhacay. Channelkeena ha ka hilmaamin subscribe, fiidiyowgana like noo saar.